munaasabadani ballaaran oo ahayd madal lagu xusayay xuska maalinta xanuunka duumada oo si weyn looga xuso dunida oo dhan ayaa waxa maanta laga xusay magaalada Boorame caasimada gobolka Awdal. xafladani ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolkani Awdal isla markaasina ka qabsoontay hotel Haldoor ee magaalada Boorame ayaa waxa ka soo qayb galay bahda caafimaadka gobolka, mas'uuliyiinta hay'adaha wada shaqaynta la leh wasaaradda horumarinta caafimaadka, ururada dhalinyarada, haween iyo marti kale. madashani oo intii ay si weyn looga hadlay waxyaabaha lagaga hortagi karo cudurkan isla markaasina lagu fahansiinayay bulshada waxyaabaha keeni kara ayaa waxa ugu horreyn hadalka qaatay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka, madaxda hay'adaha iyo ururadani ka soo qayb galay waxayna dhammaantoodna tilmaameen. ugu horreyn waxaanu doonaynaa in dadka la baro sidii looga hortagi lahaa kaneecada iyo waxyaabihii la isticmaalayay. waxa la yiri ka hortagga ka wanaagsan iska daaweynta. waxyaabihii la isticmaalayay ka hortagga dadka waxa jira malaariyada program ahaan waxay leedahay meel kasto endemic area ama kaneeco laga soo sheego in qorshaheeda ay ugu jirto inay u qaybso markaneecooyin. duumadu waa xanuun khatar ah oo noognahay dhibaatadeeda marka waana hawlaha ka shaqeynayno waan ku faraxsanahay inaan xuska nagala qayb galno waan barbar taaganahay wacyigelinta bulshada aad gaarsiinaysaan bulshada aad baan ugu dhownahay. 2018 and 2019 there could be significant reduction in malaria cases in our region. I hope so. inta kadib waxa hadalka iska daba qaatay madaxa xarumaha caafimaadka asaasiga ee gobolkani Awdal, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka iyo madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. waxaanu kaloon faraynaa fariin u diraynaa cid walba oo ah inay ka digtoonaadaan ka hortagaan ay insha Allah taala malaariyada. waxaan farayaa hawlwadeenada caafimaadkuna sida dawladda ugu shaqeynaysan habeen iyo maalinba inaynu dadkeena u shaqeyno. aad baad u mahadsantihiin. waa maalin xus leh, baraarujin leh, una baahan in dadka laga wacyigeliyo. marka kasta wasaaradda caafimaadka ama qaybta malaariyadu waxay diyaar u tahay oo ay samaysaa inay buufiso, inay markaneecooyin siiso, inay wacyigelin bixiso. marka u horeysa waxa la soo sameeyaa meelaha ay laafaha la qaadaa sida ay meelaha ay ku xanteedu joogto ay ku jirto ayaa la soo baaraa. marka la helana waxa lagu sameeyaa in la soo buufiyo deegaankana wacyigelin laga soo sameeyo. wacyigeliyaasha gobolka Awdal inay dhammaantood ka qayb galaan wacyigelinta duumada, taasoo ah dhibaato badan ay ku haysto dadka, waxyaalo badan ay u geysato. marka min fadlakum waxaan naga codsanayaa anigoo ah madaxa wacyigelinta inaan fariinta dadka wada gaarsiino, aynu u sheegno dhibaatada leedahay kaneecadu iyo sida looga hortagayo. caruurta iyo dumarka uurka leh ayaa ugu sii daran. marka fariinta aynu u gudbino dadkeena. Cabsalaan Saha, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorame.